بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أولا وحمادك الله سبحانه وتعالى الله سنسي نعمة الإسلام والإيمان. ثانيا وحنا كانوا أمهد علينا والعالم محسنين أو سود يبتي أذيقنا وجيدان وقلنا صوت لقلي محمدان وحنوصا إلهينا عفما تام إله السيو مرك أماندي أي نوسو ديبان سيد هذا وجيدان وفيديو قد وجيدان sidii nagu soo dhiibaan u gadoonsiinay waxyaalaha hadda aan horteena ka muuqdo waxa kamid ah haaf bariis ah iyo haaf bur ah iyo haaf sokor ah waa 25 kilo bariis ah iyo 25 kilo bur ah iyo 25 kilo sokor ah iyo 5 kilo oo basta macaroni ay 5 kilo basta dheer ay caag 3 loo saliid ah marka adeegii amaanadii aad na soo gaarsiiseen aad naga amarteen inaad aan gaarsiino maamadan waa soo gaarsiinay sidii videoga ugu jeedaan marka aad ay u mahadsan yihiin walaalahaas oo maanta soo sadaqaystay jeclaadayna in magacooda aan la sheegin oo maadaama sadaqad ay baxsadeen oo ay aakhira ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ajirsi doono insha Allah ilaahan ugu baryeena marka dhamaan ummadda muxsiniinta ah meel walba ay joogaan waxaan cod dheer aan ugu jeedinayaa in dadka masaakiinta ah oo barakacayaasha ah iyo agoonta inay soo gurmadaan meel walba ay joogaan marka anaga mar walbana dadka waxaan u hadalnaa oo waxaan u raadinaa dadka masaakiinta ah iyo barakacayaasha iyo dadka agoonta ah wixii aad noo soo dhiibtaana sida hadda u jeedaan oo videogan aan u soo duubnay cadeynta ah idinkoo aad nooga amrin in wax soo duubna adana dhahinaan waxaan go'aansanay inaan soo duubno oo aan idin soo dirno si dadka kale sababta videogan loo soo duubayo waxay tahay si dadka kale iyagana ay wax u baxsadaan oo walaalahooda oo masaakiinta ah ay ugu sadaqaystaan mid kale maamadan sidaad u jeedaan gabadhaas yar dhabteeda saaran waxay haysataa 4 caruur oo agoon ah oo kaga tagay wiilkeeda oo kaga tagay marka baahi jiro awgood ayay ilmihii agoontii ay u xamili waysay saddex kamid ah waxay u celisay baadiyo mid aan gabadhan yar ay reebatay marka hadii ay maanta garab ay hesho oo dad Soomaaliyeed oo muxsiniin ah oo islaam ah oo garab siinay maanta haday hesho waxay jeclaan lahayd in ilmahaas ay baadiyo ay ka soo celiso magaalka ay keento maanta xitaa guri deegaan ay degto ma haysato waxay hadda ay ku hooyato u jeedaan oo cooshadahan meesha ka dhisan ay ku hooyata maanta hadii hal qofood oo dhul u gadi lahaa oo dhisi lahaa iyada iyo ilmaha agoonta ah oo gurigaas ku ogaan lahaa oo xitaa marka laga soo taga inay cooshada guri boos ah ama nus boos ha noqoto qofkii wax u dhisi karo wax u dhiso deegaan siiyo ardaydaas ilmahaas ka warhaayo ilmahaasna iskuul iyo dugsi wax cad maanta ay haystaan malaan marka maamada la soo garab istaago ummadda muxsiniinta meel walba ay joogaan ilmo agoon ay haysataa 4 cunug ah mid kamid ah waa hadda dhabteeda ida bareebatay saddexna baadiya loo celiyay wax la'aan awoodaana baadiya u geyso inay isku korrafaadaan ay ka walwashay isas dhaligeeda baadiya loogu celiyay ilmahaasna waxay jeceshahay maamada ay u tahay wiilkeeda dhalay agoon waay inay soo celisay jeceshahay marka haday soo celisay meel ay ku noolaato ilmaha ay kula noolaato ma haysato meel hada deegaan ah oo iyada ay u madax banaanta ay leedahay ama guri kiraha noqdo ama guri oo deegaan ah oo iyada ay leedahay oo milki ah ma haysato maanta qofkii hal qol oo jiingad ah boos u gad hal qol oo jiingad ah u dhiso ajru ilaahay subhanahu wa ta'ala oo kasina ajrun wax way qof maamu waayeel ah waay oo maanta garab u baahan oo garab aan haysan marka ummadda muxsiniinta meel walba ay joogaan waxaan leenahay soo garab istaaga tada kale sadaqadan dad soo dhiibtay dadka soo baxsadayna iyagana muraadkooda ilaaha u saqiro waxa maalin jimco ah ay soo gaarsay isla maalintii jimcahana aan gudoonsiinay maamadii marka saacadu oo mustajaaba ku jirto maalintii jimcaha sida rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo sheegay marka sadaqadan ilaaha u aqbalo waa xilli dambo waay waxaana hadda waa salaadii casran joognaa marka insha Allah sadaqadeedan ilaaha u aqbalo muraadkan ilaaha u saqiro warka bedel khayr qabo ilaahay meesha ka soo bixsan bedel khayr qabo ilaaha ugu bedelo maamadan iyadana ilaahay ugu anfaco wax ay ku nasato iyo muddo ay ku moodo ilaahayna ugu dhigo insha Allah.